su-aashan waxay ka socotaa walaal xagga wiilasha ku xiran daartan barakaysan. waxa uu leeyahay sheekhow waxaa dhacday in gabadhii aanu muranay waxoogaa murankaygii markii uu socday anigu gurigan hore usii aaday deetana waxa uu yidhi booliis bay igu wacday. booliiskii markii ay ii yimaadeen wax badan imayna weydiinin ee amarkeedii unbay qaateen, anigiina mataqaanaa hanjabaad iyo wareer bay mataqaanaa igu sameeyeen, waynay dhaadhiciyeen buu yidhi oo way xireen. adigu markiiba waa laysoo daayay buu yidhi. wuxuu yidhi waxa aan sameeyey baaritaan baan sameeyey oo niman aan wada shaqaynaynay oo caddaan ahaa baan weydiiyey waxa haddii aad xasiskiina waxoogaa ay safdhaaftaan ma markiiba booliiska idinku wacan arrinka 911ka la yidhaahdo ee ay dumarku ku degdegayaan dhibaatada ma nala qabtaan buu yidhi haddii aad tihiin maxaan ku idhahdaa ayada dadkaasi waddanka ku noole caddaanka. way ii jawaabeen oo waxay yidhaahdeen qaarkood 20 sannadood iyo ka badan kuwa guri lahaa weligayo 911 iyo booliis xaasaska iyagu noogumayna yeedhin. marka sheekh waxaan la yaabanahay buu yidhi arrintan ma mid inaga u nagu kooban ba maadaama dad islaama aanu nahay oo mataqaanaaye ilaahay subxaana watacaala islaamnimo ku arsaaqay xaggee bay naga soo gashay gaalkiiba wuu ka xishoonayaa inuu 911 ugu waco lamaanihiisa. arrintaasi aad baan ula yaabanahay. maxaad arrintaa ka odhan lahayd buu yidhi, maxaad gabdhaheenana kula talin lahayd? falyatafadal mashkuuran majuura. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد horta xalaqaadkii aan soo dhaafnay fadhi kamida baan mawduucan aan kaga hadlay, dib ha loogu noqdo insha allahu tacaala. ku-celcelintiisuna macno badan ma leh, laakiin informationkan ziyaadada ah ee walaalku uu keenay haddii anagu soomaali baanu nahay, soomaali baanu ka imaanay waddan afriqiya la yidhahdaanu ka imaanay. 9 iyo 11 maanan aqoonin, marka ma wuxuu leeyahay walaalku oo ka fahmay warka ninka. marka anagu qaxootiga aan meeshan imaanay baa la sameeyey 911ka. 911ka wuu sii samaysnaa, ayagaana samaystay. haddayna ayagu iskugu yeerina maba ayna samaysteenba, marka warkaa sax maaha. walaalku warka uu sheegayo iyo informationka uu ninkaa ka soo qaaday sax maaha. annaga inay nagu soo leexiyana sax maaha, gabdhaha soomaaliyeed kusoo leexiyana maaha. gabdhaha soomaaliyeed akhyaar weye, gabdhaha soomaaliyeed gabdho sharaf badan baa ku jira, gabdhaha soomaaliyeed raggooda way jecel yihiin, gabdhaha soomaaliyeed carruurtooda way jecel yihiin. mid xoogaa tawfiiqda laga qaaday ama cabsatay ama xoogaa adduunya u leexatay ama ninku uu soomaaliya kusoo dili jiray oo hadda uu damcay inuu dilo, maya gabdhaha soomaaliyeed gabdha khiyaaro weeye, yaa lagu xadgudbin, sharaf bay leeyihiin biidni illahi tabaaraka watacaala. gabdhaha afcaal ay sameeyaanna kulligood yaan la dhihin gabdhaha soomaaliyeed baa 911 waca. laakiin waxaan leeyahay 911 halkanan ugu imaanay annaga soomaaliya, annagoon wada nin baanu ayaanu ka imaanay, mana aanan aqoonin. gaaladu been buuna sheegaya ninka gaalka ah, waayo gaaladu ayagaa been sheega. hadduusan ayna iskugu yeedhin maxaa loo sameeyey raqamka la yidhaahdo 911. raggow dadaala, dumarow dadaala, ilaahayna ka baqa tabaaraka watacaala. haddaad iskhilaaftaanna arrintiina ku xalliya wadahadal iyo sharciga islaamka, suma dhaqanka soomaaliyeed ee wanaagsanay, taasaad ku guulaysanaysaan biidni illahi tabaaraka watacaala. wallahu aclam.